Kim Jong-un xaaladiisa caafimaad aad baa looga dayrinaya. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah dalka waqooyiga Korea ma waxaa xukunka la wareegi doonta Kim Jong-un walaashi oo noqon doonta haweeney kaligeed talis ah tii ugu horeysay adduunka. Waxaa jira mala awaal badan oo la isla dhaxmarayo dalka waqooyiga Korea taasi oo ku saabsan xaaladda Kim Jong-un oo sida la sheegay aad looga dayrinayo laakiin wali ma jiraan warar rasmi ah oo cadeynaya geeri iyo nololba xaaladda hogaamiyaha. wararkan mala awaalka ah ee la isla dhaxmarayo ayaa waxa ay soo baxeen kadib markii indhaha bulshada ay qaban waayeen Kim Jong-un xilli si aadan loo wada dhowrayay inuu bulshada ka soo hormuuqdo. dalka waqooyiga Korea oo ah wadan sirqarsasho badan ayaysan warbaahinta caalamku u saamaxayn in ay xaqiijiyaan warka ku saabsan hogaamiyahan kaligii taliska ah ee Kim Jong-un. Kim oo ah jiilkii saddexaad ee qoyska talada dalka waqooyiga Korea haya oo beel ahaan loo yaqaano Pyaktu ayaa iyagu si toos ah isaga dhaxlayay jagadan madaxtinimada dalka waqooyiga Korea qiyaas ahaan 3 fac. waxaana taasi lagu macneyn karaa in beesha uu Kim uu ka soo jeedo ee Pyaktu ay iyagu bilow ilaa dhamaadba ay xukumayeen dalkaasi waqooyiga Korea. haddaba marka la tixraaco fikirkaasi ayaa waxaa muuqata in Kim Jong-un walaashi ay noqon doonto qofka xiga ee sida tooska talada dalka ugala wareega isaga. haddaba taasi ma waxay macnaheedu ay tahay haweeney ayaa xukumi doonta dalka waqooyiga Korea? waa tuma haweeneydan Kim Yo Jong waxa ay had iyo jeer ay shirar madaxeedyada dhinac fadhida walaalkeed, waxana ay xitaa gadaal ay ka fadhiisatay madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyadoo matalaysa waqooyiga Korea ciyaarihii Olombikada xilliga jilaalka sanadii 2018. markii ugu horeysay ee haweeneydan bulshada ay ka soo hormuuqato waxay ahayd tacsidii aaska aabaheed iyadoo wixii xilligaasi ka dambeeyay la arkayay in ay mar walba dhinac fadhiisato walaalkeed, waxaana la aaminsan yahay in ay tahay qofka kaliya ee u muuqda in ay bedeli doonto walaalkeed haddii uu geeriyoodo. macquul ahaanshaha in ay fursad u hesho dhaxlidda awoodda dalkaasi ayaa ah 90%, waxaana taasi macnaheedu uu yahay in lagu rajo weyn yahay in iyadu ay dalka taladiisa la wareegto. waxay ahayd xubintii ugu horeysay ee qoyskeeda ee booqata caasimadda Seoul ee dalka koonfurta Korea si ay madaxweynaha dalkaasi Moon Jae-in uga casunto shir madaxeed iyadoo matalaysa walaalkeed. waa haweeney ku dhex jirta bulsho badi raggu ay u taliyaan. dad badan waxa ay leeyihiin dhiigga iyo wada dhalashada ayaa ka muhiimsan jinsiyadda qofka, balse qaar kale oo bulshada ka mid ah ayaa shaki gelinaya arrintan. waxaa laga yaabaa inaysan lahayn dhaqamada aan caadiga ahayn ee sare ee ay lahaayeen xubnaha qoyskeeda ee soo xukumaya dalkaasi 3 fac, laakiin haddana waa qofka kaliya ee sirta u haya walaalkeed, waxaana lagu yaqaanaa in ay dabada ay ka laado cid kasta oo cadow ku ah siyaasadda walaalkeed. mowqifkeeda qaybta shaqaalaha ee dacaayadda iyo waaxda qalalaasaha waxay mas'uul ay ka tahay maareynta muuqaalka hogaamiyaha ee dhinaca warbaahinta dowladda. inkastoo aan wax badan laga aqoonin iyada, waxa ay xubin firfircoon ay ka ahayd daaha gadaashiisa iyadoo ku soo shaqaynaysay gacanbira. sida saraakiisha sarsare ee kale ee dalkeeda waxa ay haweeneydan liiska madow ugu jirtaa waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka oo sanadii 2017 ku soo daray liiska dadka dhiig miiradka ah ee ku xadgudbay xuquuqul insaanka. Kim Yo Jong waxa ay sumcad ay ku heshay bombooninta dacaayadda wadanka, waxaana sidoo kale ay ku jirtaa saraakiisha ka shaqeeyay sharciyeynta siyaasadaha adag ee faafreebka ka baxsan bini'aadantinimada iyo habdhaqanka ku salaysan dulmiga. shakhsi ahaan markii ay dadku ay arkeen in ay mar walba ay dhinac fadhido walaalkeed, waxa ay ugu magac dareen Ivanka Trumpka Kuuriyada Waqooyi. marka ay bulshadu ay ka soo hormuuqanayso waxaad arkaysaa iyadoo dhoola cadaynaysa wajigeeduna uu u muuqdo haweeney wanaagsan oo waji furan oo aan la mid ahayn walaalkeed, laakiin marka aysan faraxsanayn waxa ay si toos ah ugu eg tahay walaalkeed kaligii taliska ah. Kim Yo Jong waa qof caqli badan oo xisaabtamaysa, ninna ma qiyaasi karo xajmiga awoodda ay samaysatay intii ay daaha dabadiisa ka shaqaynaysay. haddii ay hesho furaha boqortooyada waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horeysay ee dalkaasi xukunta tan iyo markii dalkaasi qaran madax bannaan u noqday sanadkii 1948. waad ku mahadsantihiin dhageysiga qodob wareedkan oo aad kala socoteen Wardhowr Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe garee,
haddii aad tahay macmiil soo noqdayna ha iloobin in aad gambaleelka aad furato oo klik aad siiso si aad ula socoto wararka had iyo jeer aanu soo gelino janalkan.